معالي الوزير عبد الرحمن دعالي بيلي وزيرك مالية صوماليا maanta oo kale muddo 4 sano laga joogo oo waliba hadda wax weheliyaan ayaad noqotay wasiirka maaliyadda markaad wasaaradda imaanaysay sidee bay ahayd horta 4 sano waxaan u maleynayaa maalintii xafiiskan aan imi 4 sano waxa kaalay dhowr cisho أنا waxaan dareemayaa maanta aan oran karaa yaani sharafta ugu weyn ee qof bini aadan qaban kara waa in dalkiisa looga dhiibo lagu aamino mas'uuliyaddan oo kala wasiir maaliyadeed wasiirada of course waa wada fiican yihiin laakiin wasiirka maaliyaddu waxa weeye waa pulse nationka weeyaan maarta meesha wadnuhu ka dhaqaaqay in mas'uuliyadda inta lagugu aamino dal soo koraya oo tacbaana oo ilaahay xaalkiisa og waa sharaf aan la soo koobi karin weey maalinta marka laga bilaabo ilaa maanta aan joogno aniga shaqadeedu waxay ahayd inaan sharafta beerdarayn aanan meel kaga dhicin in sharaftaasi muuqato inaan dalka wax ku soo kordhiyo marka dareenkaygu aad iyo aad buu sareeyay maanta 4 sano aan soo wadnay waa wax wanaagsan garashada ayaa naf ahaanteedu wax weyn ah maxaad soo kordhiday marka aad isleedahay waxaan soo kordhiyay horta shaqadan iyada waxa weeyaan haddaan shaqo ka qaban lahaa dalka shaqadii aan ugu aqoonta badnaa weey shaqadii aan ugu aqoonta badnaa maaliyaddu wada intaasoo sano ya waxbarashada waa finance weeye economiga dhaqaalaha weeyaan noocaas oo kala dhaqaalaha beeraha shaqadeeda ma beeraha ma waa dhaqaalaha financial economics leeyahay ya meeshan ka shaqeynaya anigu African Development Bank ayaa aan in badan ka shaqeeyay beeraha development horumarinta beeraha oo mashaariicda ayaa loo maleeyaa laakiin beeraha ma waa aniga degree-gaygu kuwa horena waa finance iyo management tii hore waa finance and economics wada jira tii ku xigtayna waa finance iyo management wada jira PhD-duna waxa weeye horumarka nationka oo ku saabsan dhaqaalaha iyo social process ku galaan waxa la dhiibay shaqo ku saabsan inaan la shaqeeyo dadkii aan la soo shaqeyn jiray baanankii aan la soo shaqeyn jiray ajnabiga United Nations kii kuwaan la soo shaqeyn jiray ayaa la dhiibay dadana magacyadooda garanaya inaan la shaqeeyo la dhiibay halkeed ka bilowday hawsha marka horta waxaan ka bilaabay waxa weeye waxna waa gudaha waxna waa dibadda wixii gudaha waxaan ka bilownay in wasaaradda maaliyaddu noqoto wasaaradda maaliyadda ee dalka waan cid waliba lacag iska ururin nin waliba intuu doono ururin dibadda intuu doono ku soo gudbin bisha aakhirkeeda saasay markaan imaano intaasoo hay'adood 26 maalmo marayaan hadda ka badnay dhowr 30 bay ku dhawaayeen ayaa mid waliba goonidiisa u ururin jiray fees ama cashuuro ama waxyaalo dakhliga ururinaya dawladda oo wasaaradda dakhliga ururinayaan license ka bixinayaan lacagta iyaga ururinaya certificates ka caruurtay lacagta ka ururinaya waxa la wixii dawladda servicekeedii oo dhan lacagta way ururinayaan dabeetana bishu markay dhamaato wuxuun bay soo tuurayaan qasam maaha wixii oo dhan damiyaad ogtahay ma ka waraysaa ilaa cid kuma joogto halkaas kama waraysaa marka qaraarkii ugu horeeyay cabinet ku qaatay waxaan u maleynayaa shirarkii ugu horeeyay taanu kii koobaad kii labaad ama kii saddexaad waxa la gaaray wasaaradda maaliyadda in lagu soo wareejiyo in cashuuraha inay qaado dakhliga iyada ururso waliba waxa la yiri saddexda bilood soo socda intaas soo wareejiso mar kaliya hadii la yiraahdo dadku way iska diideenba ya diyaar baa inay waxaan inay soo marka marba waxa la yiri inta la soo wareejiyo markaas waxaan qayb ka noqotay programkii IMF aan la seexanay bay qayb ka noqotay in ma garanaysa in la soo wareejiyo dakhli soo ururinta dawladda in wasaaraddu ku soo ururso number 1 talabaad inaan qolooyinkan haga dhaqaalaha adduunka ee IMF ku koow ka tahay hay'adda lacagta adduunka ay koow ka tahay inaan la falgalo la fadhiisano oo aan wada la jeexano oo ay aamini karaan يعني habkii aad u wada shaqeyn lahaydeen inaad isku afgarataan ayadana go'aansan yani waxyaalaha markii u horeysay aan kala kulanay waxa kamid ah inay
u malaynayeen inaynaan mas-uuliyad qaadi karin inaynaan ka soo bixi karin waxaa loo baahan yahay inaan ka soo baxno shaki weyn bay naga qabeen shaki weyn baanu xad lahayn ayay naga qabeen waxaa kale oo meesha ku jirta iyadana dadka ka shaqeeya wasaaradda oo iyaguna day in and day out oo dadka mushaar ma qaadan jirin markaan imaan dadku ma iman jirin wasaaradda ya mushaar la'aanta darteed mushaar baa dee 7 bilood dadka ka maqnaa marka waaba dooniba halkan yaa xafiiskan yaa jooga structure-kii baad haysataa marka halkan yaa jooga hebel bal igu yaar lama helayo hebelna lama helayo qofka hadduu ku yimaadana meelahaas way eegayaayo dee wax faa'iido meesha ka soo galaya mushaarana ma qaadan marka nin walba sidiisuu shaqo tagay maarata soo caqabadahaas saddexdaa oo kala gedisan oo laba gudihii tahay shaqaalihii iyo niyadjabkooda iyo mushaar la'aantooda iyo canshuurihii oon hal meer ku urursanayn iyo arrimihii internationalka oo bangigii ah intaasoo dhan oo wada cakiran baa timid taasoo dhan wada cakiran waxaa ugu daraa marka waxa weeyaan dadku inay soo shaqo tagaan mushaarana qaataan inaan hubinno dadka ila shaqeeya horta wasaaradda maaliyadda inaan liiskooda helno inaan qof u register garayno inaan director walba qasab kaga dhigno inuu dadkiisa ogaado inay shaqaynayaan markay soo dhameeyaan shaqada soo dhameeyaan bishu dhamaatana inay mushaarkooda helaan cid waliba mushaarkooda hesho marka dadkii yidi diilo ayaan gelinay ya hataa kuwii aan shaqaynayn qaar baa meelo kale joogay adduunyo kale joogay horta marka u horeysa qoladii IMF-ta ayaan la fadhiisanay IMF-tu waa nimanka adduunka ka mas'uul yihiin adduunkoo dhan baa iyaga aaminay wax alla waxay waddanka ka sheegaan baa lagu shaqaynayaa ya adiga cid kula hadli mayso World Bank nimanka annaga nala saaxiibka aad noogu dhow kula hadli maayaan African Development kula hadli maayo bilateral kula hadli maayaan ya dalalkaasi iyagu baa la hadlayaa haawi Soomaaliya baa loonaya waxay yiraahdaan baa shaqaynaya markii hore waxaan damanay inaanu barnaamijkan la sheegaya IMF-ta leeyahay oo aniga la yiri waa niman aan qoslino adag ya ayaan doonayna la fadhiisan maxaan wada qaban karnaa waxay yiraahdeen deen cafin wax la yiraahdo jira taana wax ka sii horeeya jira intaan deen cafin bal lagu wax ka sii horeeya jira shaqooyin buura yaryar oo kale in ka soo gudubto intaan buurta weyn gaarin marka buurta yar hoose aan isla garanno waxa kamid ah shuruuc in la develop gareeyo waxa kamid ah dadkaaga inaan ogaano cidda mushaar qaatay cidaan qaadan inay shaqeeyaan inaan shaqeyn inaad adigu lacagta urursan cid kale ururin dakhligaaga inuu kordhiyo inaanad wax aanad lacag haysan soo iibsan eegada inaad wuxuu iska soo iibsato soo amaato dabeetana lacag dhow raadso ma soconayso inaan computerkaaga ku xidhnaano oo la socono aan ku dhinaca kale ka joogo hadaad ogoshaa walka malaadi kalena halka ka baxo horseena uu golay wax aliyaal wuxuu hagaajinayaba maxaa ban qarin baanu ya waan ogolahay ka dhinaca ka soo fariista waxa aan ku heshiinay waana soconaya marka aniga runtii waxaan waqti badan geliyay in la yiraahdo Somalis have changed nimankii Soomaalidii way isbedeleen waxaan shalay isku ogeyn soo kun sameeyay soo kuwatana sameeyay ya wala inoo qaateen human hay just like everybody else ya la inoo qaateen la inoo kalsoonaan karo marka muddo intee la agay hadiiba bilaaban inay ku kalsoonaan sanadkii labaad waxay bilaabeen waxyaalo yaryar horta marka horeba marba cilmigaagu halkuu yahay imtixaankeeda laga qaadaa mogti ya marka horeba waxay dooneen inay geliyaan dugsi quraan waralka ma meel sare aan ka bilownan anagu meel sare halkaas way hooseysaa meel sare aan ka bilowno oo de wadanadii hore soo galay baan aqaanaan Sierra Leone iyo Liberia iyo waan ka shaqayn jirnay meelahaas markay soo galayaan waxaan halkaan ka bilowno standard 2 aan ka bilowno standard 3 aan ka bilowno war ma ka bixin maysaan bal itus baan ku yiri course kala dhiganayo itus wala natusay waan ka baxayna ha isku soo duuduub 4 sano kadib halgankaas dheer oo soo martay imsi in ku qaadatay ha halkee taagantii bal inoo cadee halkan taaganay baan ku sheegay waxaan taaganahay in maanta kharashka dawladda ku baxa in la dawladdu shaqayso oo mushaharaadka iyo arrimahaas ay ku jiraan inaan 67% inagu ka fargarayno oo dakhli anagu waan keenay noo soo galay
inuu daboolayo 10% buu markii hore maalinta markii hore aan ku taana ku sheegi 10% buu markii hore 10% 20% 30% yo hadda 60 buu maraya googo iyo maraya maalinta inaan waxa loo baahan yahay necessary-ga waxa weeye mushaaraadka cuntada ciidanka ya xafiisyada waaweyn running cost-kooda waxa la yiraahdaa hawlgallada ciidanka waxaasoo dhan marka la isku keeno haddii intaan anagu soo ururino ayaa 60 ka fargaranaysa oon bini aadam ajnabi cidina waxba uga baahnayn laakiin de intaa kale kabka aba important oo loo baahnaa maaragta marka taasi waa taa xagga muxuu ahaynaa revenue ama dakhligu maalintii aan nimi yani sanadka aakhirkiisa weeyaan qiyaastu maaragta waa 112 milyan sanadkii dakhligii soo galay sanadkii wuxuu ahaa 2016 aakhirkiisa 17 aakhirkiisii wuxuu noqday milyan muxuu ahaa 142 aad buu kii ku xigay 148 milyan kii ku xigay 200 milyan oo milyan maanta waxaan filaynaa 206 uu soconaya waa fari kama qodna waxa weeye dadka Soomaaliyeed waa dal walba dadkiisa dhisa maarag ya dalka aan dadkiisu ku filayn inay kharashkooda iska bixiyaan dal buu noqonaya marka inta shaqo aad soo qabateen oo maanta halka maraysa waxa adiga personal aad ugu faraxsan tahay hadii lagu weydiiyo oo aad dhihi karto alla ilaahay waxaasan ku faraxsan systemka maanta yaalla ba kamida maaliyadeed nidaamka maanta yaalla maaliyadeed sida dadku cashuuraha u bixiyaan ama fiiska u bixiyaan si ay banka u tagaan sidaani qofna lacag ugu dhiibin sidoo dakhligu halka soo galo sida loo maamulo lacagtaas u baxdo checks and balances ya systemka la ka tagayo ya oo biya kama dhibcaana oo cid waliba la socoto ya oo aad badhanka taabanayso soo birin garay waxay dhacay oo dhan xaga IMF-tana laga taabanayo halkana laga taaban karo meel walba laga taaban karo ya the single most important element waa systemka meesha la dhigay waxa ku xiga waxa weeye systemka qof waloo shaqeeyay mushaharkiisa 30 intaanay gaarin ay meeshiisa ku dhacayso eeganka دكتور بيلي معالي الوزير haddii aadan ku soo noqon wasaaradda oo cid kala timaado adigana meel kale aadid ama wax kale nidaamkaas inuu sii socon karayo ma u malaynaysaa horta nidaamkuna waa mid dadka wadana waa mid culture baa isbedelay sidii wax loo bixin jiray baa isbedeshay anagoo imika wax alliya wax awood gaar oo leeyahay ma jirto systemkan meel kaga jira moogta halkaasaan ka eegaya mooyaane ama halkaasaan anoo kala garanaya ya haddaanay weli soo gaadhin oo nimankii kale aanay weli soo ansixin ma ansixin karaanu hebel oo bixi cirka u sheeg baa lagu odhan hebel oo bixi ma odhan karaanu caqabadihii kugu weynaa kuwaas aad soo sheegtay shaqaalaha iyo marka laga reebo iyo waxyaabo kale oo aad isleedahay xanuunay kugu hayeen oo niyad jabay kugu abuureen markii koowaadba maxaa ka mid ahaa oo ku soo maray generally waxaan u malaynayaa anu waxyaalaha ugu waaweyn halkan igu soo maray waa waxyaalo iska caadada Soomaalida ahoo waliba caada xun ah oo loo baahan yahay la bedelo ya dadku halkan kugu yimaadaan adigoo cusub ay ku yiraahdaan lacag baan ka rabnaa aniga yiraahdaan wasiirka maaliyadda tahay Soomaa lacag baan ka rabnaa ay ku yiraahdaan waliba niman xaragoonaya dadka kale kuwa soo gali kari dawladdu shaqeeyo mas'uuliyadda u shaqeeyo I don't want to say that ma doonayna cidna magacaabo laakiin dadka Soomaaliyeed ee dhulkan ku nool reer magaalka dadka reer magaalka ayaa ku iman halkan lagu soo dhooban horta first arinta igu darin waxa waa la soo dhooban halkan la wada fariisan dad oo dhani maanta oo dhan ka bixi maayaan ya sheeko nation lagu wadaya sheeko yeesha waliba 12 markii gaadho aroortii iman maayaan oo way wada hurdaan moogti ya 12 12 halkan la iman maanta oo dhan halkaas la fadhiyo adna wad ka xishoodo dadkii baxaa oo dhan mis wax alliya maritooro dhow wax taasi dhib bay dhibta kale waa lacag weydiisiga
maanta naga fuji baa lagu ku imaan jirin waa naga fuji waan soo socdaa taasina wajir maanta naga fuji baa lagu ma fahmaya anigu wallahi inaan fahmay waxa loo jeedo ninkan maqadu doonaya baad soo haddana waa nin qurux badan oo aqalka soo toosay qadaw baxna hadhow ku oran gaadhaan doonaya ama wax weyn baan doonaya waxa weyn anigu xageen ka keena taasi waa koow waxay sidaasi waa koow arinta la jeefiyana bannaan waa laba sharcigii baa sidan halkeen ka mari karnaa waa naga dhaafo sharci leeyne anagu siyaasad baan ka shaqeynaa baa lagu bal adigu faham waas sharciga inaga qorqornaysa ma u badan ya marka lack of respect sharcigeena waa wax maskaxda Soomaalida ku jiro ay tahay in la bedelo caqabada kale waxa weeye inaad shir halkan ugu yeedho sagaalka ama wal sideedda baan oran jiray oo cidiba ima weyn wallan xum cidiba ima weyn haddadaasi taagantahay anigu waxaan ku sheegayaa Yuusuf Xasan horumarka Soomaaliya wuxuu ku xidhayaa mid keliya maxay tahay mid keliya ku xidhayaa midda keliya ku xidhan waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee shaqo wax qabanaya inay value-ga time ku leeyahay qiimo leeysiiyaan ya waqtiga waqtigu eeg adduunka wax waliba zero bay ka yimaadeen baa science-ka marka wax waliba zero bay ka yimaadeen haddaad akhrido zero as the center of the universe ya zero the word the area zero wax waliba waqtiga isku yimaadeen bal carru waxaad ogaataa adigu shir loo yeedhay oo la yidhi sagaalka bilaabma waa challenge weeyaan aad ka soo shaqee cudur daar lama aad ka soo shaqee ma yaday ka soo shaqee waa challenge weeyaan lama imanayo sagaalka 10 kana la iman maayo ya kii jeer garinayay baan imanay oo kuwii loo yeedhay baan imanay marka waxba ka soo qaadi mayno marka waa arrin weyn aniga waa ugu weyn the most difficult issue wax laga qabto dhaqanka la iska bedelo waaradeer sideedda aniga halkan waa sideedda waa la shiraa ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Ducaali Bey waxa la isweydiinaa dad badan deyntiina la kulahaa iyo deyn cafintii bal hadda wax deynuna la ka cafiyay ma jirtaa mise wali wadadii baan ku soconaa ma eeg horta kulleeyba nin deyn kugu leeyahay lacag badan kugu leeyahay de wuxuu kaaga deynayaba oo aan ahayn inuu dhulkaaga bar qaato ya waxaan adaa isqiimaynayso ma hadduu ku yidhaa badda baraysiyo deyntan kaa daayo adaa isqiimay ya hadduu ku yidhaa intaasoo dhulaysiyo aan deynta kaa adaa isqiimay laakiin hab loo sameeyey baa jira wadannada in deynta lagaga cafiyo habkaa hadday soo maraan waana hab adag weeyaan habkaasi waxa weeye hab ah aan deynta kaa daynay isnadiifi ya isnadiifi number 1 number 2 aan deynta kaa daynay dadkaaga liita wax u qabo aan deynta kaa daynay waxba xadin ya aan deynta kaa daynay wadada dheer ee dad filin ku dhac wadadana waa wada tuuro badan oo geeda badan oo wax badan oo budiyaha ka daalayso boqolkiiba 5 ayaan maraynaa macnaheedu ma yahay adduunku wuu shiray horta wuxuu ku heshiiyey oo in badan ka fikirayay in Soomaaliya in deynta laga cafiyo laga shiri karo laga daayo ma taasaa muhiim ma ka shiri karnaa mayda lay kama shiri karo horta tana qabtaan ta kala qabtaan in laga shiri karo waana laga shiri March baa laga shiray sanadkii dhaafay bishii 3 yaa laga shiray markii laga shiray baa waxa la isla gartay inaan wixii loo baahnaayo dhan at that point ka soo gudubno wax badan inaan soo gudubno markaas waxa la isla qartay deynta horta in bar la dhaafo ya 1.4 billion in la dhaafo ya 4 billion iyo 300 billion soo ma inta in la dhaafo inta kalena waxa la isla gartay leena waxa la diiday inta maanta laga wada dhaafo in haddana qaadato eeg adduunkan ka midnahay Soomaaliya ugu horeyso Soomaaliya waxa weeye wadankii 730aad ee wadada maraya weeyaan hore loo soo arkay wadan inta laga wada dhaafay dibadana bari tago bilyan kala soo qaata oo dibadana hadhow dadkii wadada lama doonayo hadda imsaana la kulay waxa la inagu leeyahay ilaa 4 bilyan meelaha 4 bilyan ka yar 3 bilyan iyo bar baa inagu leeyahay
3 bilyan iyo barka haliya bar baa nala inta markaa waxaa la isla gartay inta la duuduubo ee kolay lagu rido in meel la dhigo. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waa arrimo cajaa'ib la ku soo maray ilaa hadda ku jirteed indhaha dhan baa ku soo eegaya lacagtii dalka oo dhan aad haysaa iyo luqluqyadeedii waa la dareemaa dhibkeeday leedahay. Marka rajo intee leeg ayaad ka qabtaa in horumar la sii sameeyo oo miisaaniyaddu sii kororto oo nidaamku sii wanaagsanaado oo sidaa lagu sii socdo? niyo horta waxaad ogaataa psychology-ga bini aadanka qofba sibuu u fikiraa maaragta. anigu waxaan qof iska iijaabi positive person ya leanna waxaan arkayaa dadka Soomaaliyeed laftoodu inuu dad wanaagsan yahay, dad shaqayn kara inay yihiin, dad wax aamini kara inay yihiin, is aamini kara inay yihiin ayaan arkaa. dad intelligent wax baran kara inay yihiin maan arkaa. waxaa kaloo arkaa oon ogahay oo sidaa adigu ogtahay khayraad unlimited ah inuu dalkan leeyahay waan arkaa. waxaa kaloo arkaa awrad saa inoogu soo dhinac walba doonayeen waxaan wax ka qaato ummado kale oo sidaa inoogu soo habsaday oo khayraadka doonayeen waan arkaa moogtay. waxaan isleeyahay ugu dambaynta waxaa najaxaya dadka Soomaaliyeed yaa najaxaya yaan isleeyahay. waxaan isleeyahay dib u noqon mayna baan isleeyahay leanna xanuunkiina soo maray ayaa qof walba u muuqda. xanuunkiina soo maray qof walba u muuqda. waxaan u malaynayaa doorashada maanta haddii lagu heshiyo road map la sameeyo waana la sameynayaa because there is no another option. khiyaar kale ma jiro ma garatay. marka waxaan anagu isleeyahay horaan u soconaynaa. waxaan u malaynayaa in haddaynu taa ka gudubna maanta inaan soo noqosho inagu jirin ayaan anagu u malaynayaa. I am very positive baan ahay. dalkani wuu dhaqaaqay wax badan baa isla qabsoomay. waxaan isku dayaynaa waxa weeyaan dadka shaqeeyey in loo mahad celiyo. waxaa lagu jiray dadka Soomaaliyeed ee cashuuraha bixiya ee ganacsatadu ugu badan tahay ya wax badan bay nala soo qabteen. ganacsatadu wax badan bay nala soo qabteen ya de waxaan sheegay cashuuraha la uranayo anigu qori kagama soo qaadinay waa un dad isxilqaamay oo loo sheegay oo nagu qancay inaan lacagta wax ku falayn ya waxa weeyaan anigu nimanka waxaan ku dhahay waxa weeyaan iyo aan is aaminay idaguna dalkiina ismiisa qayb ka qaata annaguna shilin walba halku galay aan idin sheegno waliba committee-ga soo gala. aad iyo aad baad mahadsantahay Macaali Wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya.